habeenkii xalay ahaa magaalada Athens waxa lagu farasaaro lagu garaacay waxyeello xun loo geystay gabadh ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku nool magaalada Athens dalkan Greega ama magaalada Athens waxay ahayd magaaladii ugu horeysay caalamka dimuqraadiyad ay ka bilaabato dabcan sidaad arkaysaan Soomaalida halkan ku nool iyagu xorriyadaasi ma haystaan nolosha ay ku nool yihiin marka loo eego halkan dadkan iga dambeeya waxay ka kala yimaadeen gobollo kala duwan magaalooyin kala duwan oo kamid ah dalka Soomaaliya iyagoo halkan ku walaaloobay isla markaana gurigan wada qaybsada noloshiisa Ibrahim Umar Baafe aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha kale ee Universal TV ee Ibrahim Umar Baafo waa wariyaasha Universal TV ee Ibrahim Umar Baafo iyo Cabdisalaan Hereri